Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sideed u kordhin kartaa qofnimadaada? Waa maxay miisaanka qofku? Kaalay aan isla eegno qodobo muhiim u ah qofka doonaya inuu helo personality dhaba. Qofnimo dhaba qofka doonaya qodobo muhiim u ah aan isla eegno kaalay. Ku soo dhawaada Mo Podcasti oo aad ka heli kartaan kanaalkan Mo Abdi. Waa anigu Maxamed Abdi Podcasti. Ciwaankiisu yahay waa maxay miisaanka qofku? Waa maxay miisaanka ama qofnimada dhabta ah ee bulshada lagula dhex noolaan karo, qiimahana aad ugu helayso bulshadaadu waa maxay? Ugu horreyn, waxaa lagu cabiri doonaa waxqabadkaaga bulshada dhexdeeda, dabcigaaga, cilmigaaga, geesinimadaada iyo hadal aqoontaadaba. Hadalkaaga sida aad meelaha hadalka looga baahan yahay habka aad uga hadasho, waxaa lagu cabiri doonaa qofnimadaada. Qofnimada ama dabeecadda ama personality-ga aad leedahay, qodobadaasi waxay u yihiin gundhig. Waxaana laga qaadan doonaa sawir guud ama faham guud baa laga heli doonaa nooca qof ee aad tahay. Qodobadaas aan soo xusnay waan faahfaahin doonaa, kuwa badan oo ka midana waan dul istaagi doonaa. Haddaba waxyaabaha lagu cabiri karo miisaanka qofka, waxyaabaha lagu cabiri karo miisaanka ama qiimaha qofka, waxaa ugu horeeya ama ka mid ah geesinimada. Geesinimadu macnaheedu ma ahan kaliya inaad noqoto qof ka dagaalama goobaha dagaalka oo kaliya. Geesi haddaad maqasho waa qof dadkiisa markay gardaran yihiinna ayaga celiya, markii laga gardaran yahayna dee ka celiya cadowgii kusoo duulay. Waa qof wixii lagu xallin karo ayadun dhigdaadan xalliya oo aan ahayn mid mar waliba waranka un la orda. Waxaa laga yaabaa dad badan oo naga mid ah marka geesi lasoo hadal qaado qof un dagaalyahan inuu maskaxdooda kusoo dhaco. Waa sax inaad dagaalyahan tahay, waa qayb ka mid ah geesinimada, laakiin waxaa loo baahan yahay inaad noqon karto qof dhibaatooyinka u xalliya sida ugu sahlan. Buuggii uu qorayay ninkii ka hadlayay falsafada dagaalka waa kii ku lahaa dagaalka midka uusan dhiig kaaga daadan aadna ku guulaysato adigoon dagaal caadiga qaadan waa guusha ugu fiican ee la gaaro. Haddaba qofku markuu geesi yahay, bulshadiisana uu u soo horseedi karo guul uu ku keenay hadal iyo raganimo iyo gar, waa geesi. Markii gar la waayana dee dhanka kale midda ku keenana waa u geesi. Haddaba qofka waxyaabaha uu sumcadda ku helo, qofnimadiisana lagu kor u qaadi kara waxaa ka mid ah inuu qof geesi yahay. Goobaha looga baahan yahay geesinimadana wejigii loogu baahan yahay kusoo bandhiga. Waxaa ka mid ah qofku inuu gacan furan yahay. Gacan furnaantu waa miisaan, waa cabir dhab ah oo qofka laga qaadan karo. Qofka saqiga ah ee bulshada dhexdeeda saqiga ah, waxyaabaha kheyraadka ka qayb qaata ehelkiisa baahiyahooda daboola, dadkiisu aysan asagoo waxaysta dhaliil badan aysan u soo jeedinayn. Qofkaasi waxaan dhihi karaa wuxuu leeyahay astaan ka mid ah astaamaha dadka kalena markaad wax siiso way ku ammaani, bulshadaadiina aad wax u tarto dee ammaan waad helaysaa markaad gacan furan tahay. Cagsigeeda haddaad tahay qof gacangeeda, Soomaalidu waxay tiraa gacangeed, hadda dabcan waxaad noqonaysaa qof alla xoolo siiyey laakiin bulshadiisii ay ku dhaleecaynayaan oo leeyihiin warkaa waa inkaar qabi, waxna kama faa'iidno. Waxaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee qofka dabcigiisa ama miisaankiisa kor u qaadi kara ee bulshada dhexdeeda qof sumcad leh ka dhigi kara waxaa ka mid ah dulqaadka, alxilmu. Waa inaad leedahay dulqaad, waa inaad u dulqaadataa dhibka kaa soo gaaraya markaad isku daydid inaad dad dhexdhexaadisid, waa inaad u sabartaa. Haddii dulqaadkaagu yar yahay, waa tahay qof jecel inuu alloon ahaado, keli ahaado, dhibaatooyinka dadka aan xallin amaba aan jeclayn dhibaatooyinka iyo buuqa inuu dhex galo, aadna ma heli doontid qofka dulqaadka miran ee dhibaatooyinka xalliya ee u dulqaata dadkiisa dhibaatooyinkooda, sumcadda ama miisaanka uu bulshada ku dhexelayo. Haddaba qodobka dulqaadku ama sabarku wuxuu ka mid yahay qodobada qofka cisigiisana siyaadiya. Ilaahay iyo diintuna way nagu yeerayaan in la sabro, la dulqaato, dhibaatooyinka loo sabro. Waxaa ka mid ah ballan oofinta. Ballan oofintu waa qodob aad iyo aad muhiim u ah, gaar ahaan sida qof baad ballan la gashay, haddii aadan qofka ballanka u oofin ood uga baxdo, qofkaas ballankaas uga baxday dad badan oo ka mid ah bulshada ayuu wuxuu gaarsiinayaa inaadan ahayn qof ballanta oofiya.
adigana waxay kugu tahay dhaawac sumcadaada ku dhacay ama dhaawac soo gaaray sumcadaada. marka waxaa muhiim ah inaad ballanka oofisid. dhankaas kaliya ka fiirin, ilaahay baa ku faraya ballanka aad gashaan inaad oofisaan, waa qodob diini ah. haddaba marka aad oofiso ballamaha dadka, marka aad isku daydo sida ugu macquulsan inaad u oofiso ballamaha dadka, waxaad helaysaa bulshada dhexdeeda in lagu respect gareeyo, miisaanka qofnimadaaduna siyaado, qof qiimo leh oo bulshadii ka dhex tirsan aad noqoto. balse kulama aad tahay qof ballan walba ee u galo aan oofin, ka dhaqaaqa asagoon daryeelin ballamihii lala galay, qof walbeed ballan uga baxdaa bulshada uu kaaga digi doonaa war waa beenaale ayuu dhihi doonaa. waxyaabaha kuu yeeli kara sumcad iyo miisaan bulshada dhexdeeda way badan yihiin, waan sii wadeynaa. haddii aan kala qaadno waxyaabahaas, bari waa u dhalasho oo qofku si u dhaladkiisa ama dabiici ah ayuu alla u siiyaa, qaarna waa la isbari karaa. waxaan kuu tilmaamayaa qodobo ka sii xulan kuwii hore oo haddii aad ku sifowdo bulshadaada aad dabcan kaalin mugli ka geli doonto, qof la ixtiraamo oo ilaahay xaggiisa iyo bulshada ixtiraam ku leh noqon doonto. waxaan kuu sheegayaa haddii waxyaabaha aan kuu sheegayay ee qodobada ahaa aad isleedahay yeelo, laakiin cabirkaagu uu yahay keliya adduun un, bulshadu ha ku qiimeeyaan. intaad nooshahay bulshadu ha ku dhahaan hebel waa geesi, sumcad fiican dadka dhexel, magac weyn yeelo, qur-aanka baro si aad u tujiso dadka, magac fiican u yeelato, bulshada uga dhex muuqato, jaamacad ka soo bax si aad saas u noqoto. haddii hadafkaagu yahay dadka in aad un iska gado, waxaa laga yaabaa xaqiiqdii waa dadaashay inaad bulshada dhexdeeda magac ku yeelato, maal ku yeelato, sumcad iyo respectina lagugu yeelo, laakiin waxaan kugu darayaa wax walba aad qabanaysid ilaahay dartii u qabo. maxaa yeelay waxyaabaha aanan u qaban ilaahay dartii, dee markaan ka dhammaano noloshan gaaban waxaan kala kulmi karnaa cawaaqib aad iyo aad u falxun. waayo xadiisku wakii noo sheegay qiyaamaha waxaa imaan doono nin qaari qur-aan ahaa oo ku cadaabtegaya qur-aankii uu aqrinayay ama dadka barayay. sidee buu ugu cadaabtegi? waxaa la leeyahay qur-aanka waxaad u baratay in adduunyan lagu yiraa hebel waa cod qurxun yahay, hebel qur-aanka waa u yaqaanaa, waana lagu soo yiri. ruuxa marka sidaa ay ku dhacdo camalka aad samaynayso aad dadan u samayso, dee waxaad camalkaagii hadhowdii inuu dhib kuu soo horseedo ayaa suurtagala. haddaba taladeedu waxa weeye waxaad samaynaysid haddaad sadaqa la bixaysid, gacan furnaantan kasoo hadalnay ee tahay, wuxuu dhan waxaad ku beesgaraysaa dee aakhiro niyadaada hagaaji, keliya niyadda hagaaji oo waxaad dhahdaa inamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura. aniga waxaan ku leeyahay qodobadaas waxaa laga helaa dabcan miisaankaaga siyaadaya, qofnimadaada siyaadaysa, laakiin ulama jeedo waxa dhan u samee si aad bulshada magacuun uga dhex hesho. magac si sahlan baa ku heli kartaa markaas, laakiin hadhowdii ayay noo daran tahay. marka labada dhanba niyadaadan islaaxi, ummaddana wuxuu qabo, dee waad helaysaa insha allah. qodobada muhiimka ah ee sumcadaada iyo qofnimadaadaba wax badan ku siyaadin kara waxaa ka mid a inaad tahay qof dabici hagaagsan oo akhlaaq wanaagsan leh. waa kuwa loo dhasho, waana la isbari karaa barkeed ayay dhahaan culimmadu, gaar ahaan akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan. qofku u isbari karaa inta ku dadaalo inuu iska ilaaliyo carada, digriga la badsado, waxyaabaha caradiisa kicinaya ama dadka xunxunay inta badan carada ama ficilada xun ku cadoobay ka fogaado, la saaxiibo dad dabeecad wanaagsan. dhammaan waxay sababaysaa qofka inuu dabiicigiisu hagaagsanaado. haddii aad dabeecad wanaagsan tahay, aadan ahayn qof aarsi xun, aadan ahayn qof caloosha wax ku qaada, aadan ahayn qof wixii loo geystaba xasuus meel ka dhigta, aad tahay qof cafisku uu ka yahay meel afka hore, qof dadkana cafiya, dee adigana waa lagu cafin doonaa. waana sifo aad iyo aad aan dadka ku sifooba ama leh aad ka garan karto inay yihiin dad dabeecadooda awgeed bulshada laga dhex tilmaamo. waxaa kaloo si ayaan kuu sheegi karaa inaad runta ku sifowdid waxay kaalin weyn ka qaadanaysaa inaad noqoto qof bulshada dhexdeeda miisaan iyo mug ku leh. haddaba runta aan ku dadaalno, ilaahayna wuuna farayaa inaan runta ku dadaalno, waana laga reebayaa inaan noqono kuwa beenta caadaysta. laakiin
adigu xitaa haddaa aragto siyaasi, haddaa aragto qof kale bulsho oo ku hadlaya, ha ku soo hana qaadin ama ha isdhihin beentu waa wax wanaagsan. beentu wax wanaagsan ma aha. waxaa laga yaabaa ardaynimada markii la joogo iskuullada beenta inaan caadi nala tahay. waxaa laga yaabaa meelaha jaamacad haddii tahay, wax walba haddii tahay, qalad baa gelaysaa. maxaad u samaysay? qofku wuxuu la soo boodayaa inuu wixii inkiro oo mawduuc kale uu isku dayo inuu abuuro. waxaa kuu fiican mar walba runta inaad sheegto. soomaalidii hore waa kuwii yidhi beeni raad ma leh. qodobka ku xigeen kuu sheegi karaa waxa weeye hantida. qofka hadduu maal leeyahay, bulshada dhexdeeda sumcad wuu ku helayaa. balse haddii maal keliya aad leedahay, dabeecad xun tahay, saqinimadaadu ay yar tahay, dee dabcan kuwii kale aad weysay, maalkaagu wuxuu kugu noqonayaa imtixaan. dad badan way kugula coloobayaan. dadka indhowgaradka ama garaadka yar ee danta gaaban kaa lehay inay adiga maalkaagaas wax kaa shaqshaqdaan doonaya ayaad saaxiib ama bulshada laga yaabaa inay ku ammaanaan. laakiin dadka aan danin waxaase qofnimada qiimeeya. miisaanka qofka waxay qofka hantida la qiimeeyaan markuu yahay mid hantidiisa dadka u baahan siiya, dadkiisu waxay uga baahan yihiin ka siiya, sida alla u rabo ee khayrkaana u bixiya. waxaa laga yaabaa qodobadan markaad fiirisid inaad ku fikirtid waayahan dambe annaga kuwa ugu xun ayaa bulshada ugu qiimo badane. maya, bulshada markaad cabir ka qaadaysid bulshada, qofka waxaa laga yaabaa inuu caan yahay, mawduucu wuu kala duwan yahay, caan inaad tahay iyo miisaanka qofku. adoon caan ahayn oo dad yar ku yaqaanaan ayaad dadkaas yar haddii ku ixtiraamaan 100 qof keliya haddii ku taqaano, laakiin 100kaas ay 85 ama 90 ka mid a ka marqaati kacayaan inaad qof wanaagsan tahay. dabcan qof wanaagsan baa tahay, balse haddaad caan tahay oo ay 1 milyan ku yaqaanaan, markii runta la isugu yimaado oo waxaas ay kugu xiiseynayaan laga gudbana, markii wax lagaa weydiiya dhahan qofkaas sifooyin badan xunxun ay kaa sheegaan, dee miisaankaagu ma siyaadin. waa kala labo. caannimada qofka iyo miisaanka qofka ama qiimaha qofka waa kala labo. waxaan kuu sii raacinayaa cilmiga ama qofku inuu wax barto waa qodob ka mid a kuwa ugu muhiimsan ee sumcadaada siyaadin kara. waayo akhlaaqdaaduu dhisayaa. inaad hanti yeelatay ka qayb qaadanaysaa markaad cilmi taqaano. dabeecadaadii kontrooleysaa oo waxay kaa dhigaysaa qof dabcan iskontarooli kara oo aan ahayn xaalado badan ka dhowrsan kara. hadalka waa lagu barta. qodobadii aan soo xusnay badankoodaba cilmiga furo ah. haddaba aqoon inaad barataa waxay kaa saacidaysaa bulshada dhexdeeda in lagugu ixtiraamo. laakiin waxaan mar kale farta ku godayaa, marnaba ha ku fakarin, marnaba ha isdhihin kulamaa lagu leeyahay aqoon inaad yeelato keliya aqoon yeelo una yeelo si bulshadu ay ii ammaanaan. waayo bulshadan adiga days ayaad la joogtaa, halkaad u socotaana waa meeshaan isla ogeyn. marka wax walba aan ku salayno laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura. ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa qodob soomaalidu ay jeceshahay qofka ku sifoobay. soomaalidu waxay jeceshahay qofku markuu yahay garyaqaan. garyaqaan waxaa la yidhaahdaa qof xaajada qofka markay 2 qof is haystaan u xallin kara, u garami kara, oo qofka gartiisa u raadin kara. caalamka waa la bartaa, waxaa la yidhaahdaa lawyer, qareen, doode. balse garyaqaanku 2 isugu jiraa: qof arrin xaq ah difaaca iyo qof arrin baadil ah af miishaarnimo iyo hadal badni iyo karti hadale alla siiye ku difaaca. qofka arrinta xaqaa difaacay ilaahay xaggiisana ajar uu ku leeyahay. qofkaas uu difaacay haddii keiskiisii ama arrinkiisii lagu guulaystana wax wanaagsan u helay. balse qofka arrin xaqa daboolaya oo ku daboolaya af miishaarnimo, adeegsiga hadallo u gaadha, ku hadlidda cod quruxsan oo uu isleeyahay allailehe, bulshadu markay dhegeysto waxay doontaa ninkan asagaas ahan. qofkaas aakhiro markuu tago waxa u yaalla foolxumo iyo wajxumo. qofka uu ka doodayey ee xaqiisii uu dafirayeyna waa adduunya haddii beri meel laysku arko wuxuu u hayaa urku taallo xun. laakiin qof baadil ku jiray, qof khaldana haddaan dhaho walaalow waxaa iyo waxa waa ku qaldan tahay, xitaa hadduu maalmeeyo caroodo, akhiiran markuu miirkiisu dego wuu iska qaadan doonaa xaqiiqda. wuxuu dhihi doonaa dee walba mindhacdaa qaldanaa iska qaado. laakiin qofka
aad dulmisay xaqiisiina dafirtay lagana yaaboba in adigii lagu raacay oo garta dhankaagii loo gooyey adigoo garyaqaana haddana asaga aad ka heelisay xaqiisiina aad dabooshay lagama yaabo inuu ku cafiyo. marka dhalinta bahda mawduucan daawatay intaan haddaad soo gaartay aad baan kaaga mahad celinaya. waa anigoo Mo Cabdi oo ku leh kusoo dhawaada janaalka iyo bodcastigan oo ka mid a bodcastiyadeeni Mo Cabdi ama Mo Podcasti. waa intaasi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.